بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kusoo dhawaada beeraha t v si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha. maanta sidaad ogeyseen waxaan soo wadnay cashiradii dhirta ama barashada dhirta ku saabsanaa dalagyada la cuno, inkastoon aan ka hadlayn macnaha geedaha caadiga oo ayaguna nacfiga leh baxa, laakiin waxaanu ka hadlaynay dalagyada caadiga ee soomaalidu beerato. maanta waxaanu ka hadli doonaa geedkan loo yaqaano shamaamka. shamaamku waxaa weeye waa geed ka mid ah geedaha oo ah geedaha seasonalka oo adiga 3 bilood ilaa waxyaabahaas kusoo gabagabooba, ama geedkan wuxuu kusoo gabagabooba 2 bilood life cyclekiisu. hadda waxa waaye halkan layn buu ku beeran yahay, waxa waa halkaas layn buu ku beeran yahay, tijaab ahaan u beernay. marka geedkanu muxuu ku fiican yahay, muxuu macnaha bini aadanka muxuu nacfi u leeyahay, muxuu qaabku u baxaa, isagu familigu ka tirsan yahay ama geeduhu qoysas bay leeyihiin, qoyskee buu ka tirsan yahay. intaasba waxaan ku ogaa doonaa videogan yare kaaban ama kilibkan yare gaaban. geedkani wuxuu ka tirsan yahay geedaha laysku yidhaha konkobaseya oo uu ku jiro geedka qajaarkaahu. geedka agadahaas ka tirsan yahay qaruhu ku jiro. marka waxaa la yidhahdaa climbriska maxaa loogu bixiyey? climbriska waxaa loogu bixiyey baasha yartaa oo ku dhegsado wixii uu markaas uu la socdo ama uu saaran yahay. hadda xarigan isaga isku duubaya oo baashaas climberkaas uu ku dhegsanayaa, kabacdina waxa waaye asaga raacaya. markuu climberku celi waayo oo cuslaadana waa lagu soo celinayaa oo la kaalmayna, laakiin inta kale asaga isku celinaya. marka climbris waxaas magacaas waxaa loogu bixiyey baashaas yartaa uu leeyahay oo uu ku qabsado geedaha. marka geedkani saan ognahay wuxuu ka tirsan yahay, macnaha aan hore u sheegnay, kombaseyo ka tirsan yahay. waa muxuu faa'iido u leeyahay marka bini aadanka wuxuu faa'iido u leeyahay waxa waaye geedahan wuxuu ka tirsan yahay geedaha, waana nafaqana uu leeyahay oo dhirta wuxuu ka mid yahay oo maskaxda u fiican ama maskax dejiyaha. daawona wuu yahay oo madaaweedkuu ka tirsan yahay, oo waxaa loo isticmaalaa qofka markii hurdo la-aantu ku dhacdo. geedkan hadduu macnaha fruudkiisa cuno automatically waxa waaye waa hurdaya haddii alla idmo. marka geedka kani waxa waaye waa geed sidaas uu macnaha muhiim u ah. marka wuxuu hal dhibaato u qabo waxaa weeye macnaha waxuu adkaysimo badan ma lahan, oo waxuu cudurrada uma adkaysan karo. wuxuu rabaa in aad loo ilaaliyo oo mar kasta aad daba socotid, ood qashinka ka fogeysid, ood nadiifisid, oo la buufiyo, la ilaaliyo mar kasta. marka aad buu sidaas ugu fiican yahay. marka faa'iida daradaas waa la socotaa, laakiin macnaha bini aadanka wuxuu u yahay geedkan aad buu ugu fiican yahay. kiniyaasha hurdada iyo sharoobyada hurdada iyo waxyaabaha laga sameeyo geedkan ayaa ugu badan. marka geedkani waa geedka sidaas faa'iidada wanaagsan u leh, oo family ahaanna ka tirsan. waxaa weeye waa geed aad muhiim jiddan ah, oo vitaminskii oo geedaha dhirta laga helayana wuu leeyahay. wuxuu kaloo leeyahay macnaha daawooyinkana wuu ka tirsan yahay. marka 2 qaybood uu ka tirsan yahay la dhihi karaa. wuxuu ka tirsan yahay herbal treeskana wuu ka tirsan yahay oo geedaha laisku daaweeyo ka tirsan yahay. wuxuu kaloo ka tirsan yahay geedaha caadiga oo laga helo vitaminedka ama fruudka laga helo vitaminska jirka u fiican ama ugu wanaagsan. marka geedkaas sidaas ayuu muhiim u yahay. sharaxaadiisana intaas baanu kusoo koobaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.